magaalada Laascaanood waxay isugu yimid golaha sare ee dhaqanka Khaatumo waxaan ka wada hadalnay oo aan istul taagnay arrimaha ka soo cusboonaaday magaalada Ceerigaabo shaqaaqooyinka iyo dhibaatooyinka ka dhacaya waxaan u gaarnay go'aamo ay ugu horeyso inaanu go'aansanay inaanu nabad iyo baaq nabadeed soo jeedino waxaan soo jeedinaynaa baaq nabadeed waxaanu ka rabnaa Ceerigaabo nabad baanu ka rabnaa Ceerigaabo sidaan horena ugu dhawaaqnay markii hore dhowr jeer horena ugu dhawaaqnay Ceerigaabo nabad baanu ka rabnaa sidaad la socotaan waxa dhawaan booqasho ku yimi Musabixi iyo waftigu wato waxaanu u aragnaa anagu dagaalka waxa abuuray Muusa abuuray oo ka tagay waana dagaal siyaasadaysan hadduu dagaalkaasi dagaal siyaasad ka madax bannaan yahay dhaqanku markay wada hadlaan buu joogsan lahaa haddii laakiin siyaasad ka dambayso oo la qaras kareynayo dabada laga wado dib buu keenayaa ama keenayba waxaan leenahay nabad baan Ceerigaabo ka rabnaa nabad baan ku baaqaynaa colaad kama rabno dadkayga nabad baan ugu baaqaynaa colaadaasna meeshay ka timi waa la garanayaa anigoo ku hadlaya magaca dhaqanka hareeraha iga fadhiya waxaanu goosanay inaanu Ceerigaabo aan ugu baaqno dadka nabad in lagu wada noolaado oo lagu wada deganaado waxgaradka culimada iyo dhaqanka Ceerigaabo waxaan ugu baaqaynaa nabadda waanu idinkala shaqaynaynaa idinkuna nagala shaqeeya dhinaciina ka shaqeeya yaan siyaasad iyo dad dan kale inaga wada xoog badan oo ay dadkeena isku dirin oo isku layn magaalada sidaas aanu maartay aanu soo jeedinaynaa waana go'aan ka soo baxay dhaqanka SSC Khaatumo arrintaas hoosta waxaanu ka xariiqnay nabad baan hoosta ka xariiqnay salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh